بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مقعد هي أحمد محمد كلامي شغالها الصوص حفيز كبربلاء وحناضق ما نقينا هيدا حافيكو ورنتي دائر لليرة صوص هرتي ومدلح بلاد أحبريسي مركز وقت نقسم إن قف كم إذا مركز وحفيز كي وقعته مركز وحلا يقانا مركز internship أما قف كينو شغال برتو isagoo markaas simid toddobaadnimo markaan la joogaya runtii waxaan jeclaan soo helnay inaan helno maxamed xaaji yuusuf oo kamid ah markaas ardaydii markaas soo qalin jibisay graduate-ka ahaa muddada 6 bilood markaas hay'adda xafiiska gacanta ku haysay badri markaa wax nala joogtay muddo 6 bilood ah 6 bilood runtii qof dhisan oo capacity leh oo lagu soo tabcay buu ahaa runtii xafiiskuna markaas wax badan buu ayuu markaa qabatay iyadoo markaa xafiiska wax badan bay ka faa'iiday nasiib wanaag muddadii 6 bilood iyadoo nala joogta ayaa markaas xafiiska shaqo ka soo banaanaatay markaa iyadoo la siman guud ahaan dadka deegaanka Soomaaliland ayaa markaas shaqadaas ay xareysay waxaana markaas ay la tartantay ilaa tartamayaal 10 qof nasiibkuna wuxuu siiyay markaas inay kamid noqoto markaas muddo 6 bilood kadib iyadoo markaas ka baxday markaas toddobaadnimadii oo noqotay markaa inay noqoto markaas shaqaale markaa mushahar leh oo markaas xaq iyo xuquuq leh oo kamid markaa shaqaalaha soos oo runtii markaas levelkan aan taaganay aniguna markaas ay 6 bilood kadib soo istaagtay markaa taa markaa ma hadda ilaahay baa iska leh mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa markaas ciidii soo tabacday muddada 6 bilood markaas wax bareysay waxaan markaas halkan ka cadeynayaa in bedel markaas ay ahayd qof firfircoon shaqada ku wanaagsan dadka isa loo dhaxgalo iyo integration-ka si fiican u taqaana tacab badan ka soo muuqdo runtii mashruucan maxay ahayd work in progress-ka ay xafiiska wadana runtii wax badan uu ka bedelay markaas dadkii graduate-ka ahaayee soo qalin jibiyay aan garanaynin meel ka bilaaban xirfadda shaqo runtii wax badan uu ka bedelay markaan anagu chance waxaan u helnay inaan doorkan badra helno nasiib wanaag mashruuci oo naga dhamaaday awgii soos waxay ku qanacsantay mar kasta shaqaalaha ay soo saarto xaafiyo runtii inaanu mar kasta markaas aan ku dhiirigelinay inay qof noo keenaan si markaas aan anaguna markaa uga faa'iideysano waayo qofka internship-ka lagu geynayo institution wax ku faa'iideeyay qofkuna institution wax ku faa'iideeyay marka laba qofba institution qofku u baahan yahay qofkuna markaas institution-ka u baahan yahay marka waxa weeye waa wax runtii de aad markaas waxa weeye wanaagsan oo qofka waxa la barayo waxa weeye waa de soft skills intii ka maqnayd marka aad iyo aad baan hay'adaha way ku madnaqaynaa waxaan ku dhiirigelinaa markaas doonarkii fanka bixinayay inuu markaas xafiisko door weyn ka ciyaartay waxa tusaale waa bedra oo in yar ka hor hadlaysay in chance-ka markaa ay hesho marka waxaan markaa leeyahay de qof wanaagsan baa doorka noo keenteen insha Allah waxaan ka rajeynaynaa next time kale markaas haddii aad cid qaataan in markaas marka xafiiska oo biyahay xafiiskuna ku qanacsan in kastoo soosto iska adag tahay in qof internship qaato haddana waxa weeye markaad aragto qofka hore faa'iiday adaba ku dhiirinaya markaas marka beerana aad baan u amaanay runtii shaqo fiican bay qabatay imkana shaqaalaha soos bay kamid tahay xafiiskuna aad baan u amaanayaa de doonarkii fanka bixinayna waxaan ku dhiirigelinayaa markaas xafiiska wax shaqo fiican baa hayay inaga istaamka insha Allah hadii markaa fallo helo de markaas iyagana waxay heedeen loo soo daayo isla markaas ay institutions-ka ugu faa'iidaan runtii markaas intaas baan ku soo koobaya